بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور هذا علمي أكاديمي. waxaan ku bilaabayna halkan koorskeeni cusba aan bilaabaynay ee ka hadlayay vaccinationka ama tallaalida ka hadlayay. Koorskan waa koors aad muhiim u ah, micno aad u ballaaran oo ku fadhiya bahda caafimaadka iyo guud ahaan bulshadana aad u anfacaya. Koorskan wuxuu ka hadlaya mawduuc aad u muhiim ah oo ah tallaalid, oo micnaheedu noqonayso in qofka laga tallaalo xanuunada khatarta ah ee qofka caafimaadkiisa iyo noloshiisaba dhibaatada weyn u geysanaya, sidoo kale u horseedi karo qofka dhimasho u horseedi kara ayuu ka hadlaya koorskani. Marka saasuu koorskan u culus yahay, aadna muhiim u yahay. Haddaba chapterka koowaad ee koorskan vaccinationka ee chapter 1 wuxuu ka hadlayaa introduction to vaccination. Vaccinationka hordhiciisa ayuu ka hadlayaa. Halkan waxaan xoog ku saari doonaa inaan vaccinationka wax fiican ka fahanno, sida uu shaqeeya aynu aragno, qaybihiisa aynu isla eegno, noocyada kala duwan ee vaccinationka, ciddii aasaastay taariikh ahaan vaccinationka ee ku magacaaban iminka, iyo waxyaabaha caqabadaha soo wajaha vaccinationka iyo tallaalka, iyo futureka mustaqbalka maxaa laga filayaa vaccinationka inuu noqdo. qodobadaas aynu eegi doonaa. Marka introductionka aynu ku bilaabi doonaa. Introduction qaybta hore waa definitionka vaccinationka ayuu noqonaya qeexitaanka tallaalka aynu qeexno. Marka vaccinationka iyo tallaalka ama tallaalidda waxaa kala duwan, tallaal iyo tallaalid. Marka vaccinationku waa tallaalid. Markaan leenahay tallaalid waxaan u jeednaa waa processka iyo habka qofka lagu siinayo tallaalka, waa processka iyo nidaamka administering a vaccine qofka lagu siinayo tallaalka. maxaa ujeedada laga leeyana waa maxay? tallaalka in qof la siiyo. qofka in tallaal la siiyo ujeedada waxa laga leeyahay waxa weeyaan to stimulate, in la cariyo, la dardar geliyo an individualist immune system, habdifaaceedka shakhsiga, to develop, si loo horumariyo protection, ka hortegidda laga hortegayo against a specific disease, yani xanuun gaara in jirkaagu iska difaaco, xanuunkaa jirkaagu iska ilaaliyo oo ka hortago xanuunkaas. nidaamka loo marayo ee jirkaaga lagu difaac siinayo ee lagu dardargelinayo difaaciisa ayaa la odhanayaa vaccination. kelmad kalaa jirta oo vaccinationka la raaciyo inta badan, kelmaddaas waa immunization. marka immunizationku waa wax iyaduna vaccinationku may ka dhalanaysaa, waa processkii habka qofka making a person or making an individual immune, nidaamka qofka looga dhigayo qof difaac leh. immune waa difaaci, immunization waa difaacsiin. difaacsiintaas maxay ku imanaysaa? waxay ku imanaysaa qofkii in vaccination iyo tallaal uu helo. waay marka intaan definition kaga nimaadno, vaccinationka marka laga hadlayo waa most effective public health interventions, waa mid ka mid a kuwa ugu waxtarka badan leh marka laga hadlayo bulshada caafimaadkooda waxyaabaha lagula tacaalo. It's one of mid ka mid the most effective public health interventions, yani marka bulshada la doonayo caafimaadkooda si guud wax looga qabto, waxyaabaha ugu horeeya most effective waa vaccinationka weyn. sababtuna waa maxay? significantly reducing morbidity and mortality. waxaa laga faa'iideyna waxa weeyaan waxay yaraynaysaa morbidityga, waxyeelada, and mortality iyo dhimashada from infectious diseases ka imanaysa xanuunada faafa. marka leenahay vaccination waa most effective public health intervention, yani qofka marka xanuunkii
wixii xanuunka ku keenayey ee waxyeellada ku keenayey iyo wixii qofka dhimashada u sababayey in qofka laga difaaco jirkiisa oo laga ilaaliyo wax ka difaaca la siiyo sababtaas ugu leeyahay most effective way. sidoo kale immunizationku ama talaalsiintu ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan waa to recognize and combat pathogens in la aqoonsado oo jirka aqoonsado intaa systemka jaarka kuma jirto waxa weeyaan in la aqoonsado and combat iyo pathogenka lala dagaalamo marka jirku si uu aqoonsado markiiba microbeka ama germska ama xanuun dhaliyihii uuna la dagaalamo waa in marka hore og yahay waxaan ogaanshahana wuxuu ku helayaa vaccination qofka marka la talaalo talaalidaasi waxay siinaysaa qofka in germiskan marka lagu talaalay jirkiisa soo galay hadduu mar labaad soo noqdo markiiba si yara fudud uu aqoonsado kadibna qofkan ogaaniba uu ka takhaluso talaalidu waa difaacsiin qofka jirkiisa difaac la sii siinayo xanuunka la sii barayo history of vaccinationka haddaynu ku xigsiino taarikh ahaan xaguu ka yimi vaccinationka iyo talaalku horta talaalid iyo talaal inuu soo baxo iyo dadku inay xanuunka iska difaacaan waxa weeyaan de si natural oo dabiici ilaahay ugu abuuray jirka bani aadamka inuu qofka xanuunka iska difaaco de talaalka ugu horeeya qofku haysta waxa weeye xanuunka dumar ku dhaco qofka markaa qofku ka kaco mar labada xanuunkaasi inaanu kusoo noqonayn markaa hore jirkiisa uu soo galay jirku difaacu ka samaysay dibadna mar labaad uu soo galo iska difaaci doono kaasi waa talaalka naturalka ee dabiiciga ee ilaahay jirka bani aadamka uu ku abuuray laakiin kaa marka laga yimaado kaas wuxuu imanaya qofka markuu xanuunku soo galay jirkiisa kan waxa weeyaan qofkii oon xanuunkii haynin xanuunkiina aanu ku dhicin in laga sii hortago qofkii xanuunkii lagu sii duro xanuunkii oo yani aan dhamaystirnayn ama xanuunkii oo viruskii keenaya ama bacteriadii keenaysa la dilay ama iyadoo la daciifiyey ama qayb ka mida lasoo qaatay ama sun ka mida la daciifiyey lasoo qaatay waxyaabahaas qofkii lagu mudaya jirka dabeedna la dardargelinaya la baraya waxyaabaha jirka marka la baro ee jirku waxyaabahaas uu la dagaalamo ee tababarka uu kusii qaato hadhowta haddii viruska ama bacteriada ama wixii suntii oo sideedii oo nool ay soo gashay jirku si uu yani u aqoonsan karo kadib loola dagaalami karo marka ciddii ugu horreysay oo bilowday waxay ahayd nin la odhan jiray Edward Jenner ayaa modern vaccinationkan iminka aan ka sheekeynayno bilaabay waxaanu sameeyey vaccinka iyo talaalka loo isticmaalo smallpox vaccinka ayuu sameeyey ninkan markaa Edward Jenner la yidhahdo xilligan uu soo saaray cosmocom vaccinationka ee modernka waa 1796 ay noqonaysa ma qarnigii 18aad marka concept of vaccinationka dates back waxay dib ugu celinaysaa ancient times waqtiyadii hore but laakiin modern vaccinationka casriga iminka isticmaalnaa waxaa bilaabmay waxaa bilaabay Edward Jenner oo 1796 uu bilaabay when he developed smallpox vaccine intaa kadib nin la odhan jiray isaguna Louis Pasteur ayaa advancement kusii sameeyey ama sii horumariyey fieldka vaccinationka ka hadlaya isagoo abuuray creating vaccines for rabies and anthrax labada xanuun khatarta ah ee midna xanuunka raabiyada aynu naqaano ama waalida iyo xanuunka anthraxka kudka aynu naqaano kuwaasuu talaal uu sameeyey over the years markii muddo sanada kasoo wareegayna vaccines have played a critical role wuxuu door muhiima ka qaatay vaccineska iyo talaalku in eradicating in la xasuuqo meesha laga saaro aan controlling oo la xakameeyo many infectious disease xanuuno fara badan oo faafa in la xakameeyo ayuu door muhiim ah ka qaatay vaccinationka qodobkeena saddexaad ee koorskeena qaybta introductionka waxaan kaga hadlaynaa how vaccines work vaccinesku sidee bay u shaqeeyaan vaccinesku sidee u shaqeynayaan waa inagii marka soo yar carbaabnay vaccinesku waxay sameeyaan qof marka talaalka lagu mudo talaalka qofka lagu mudo waxaan nidhi germska waa qofka horta lagu mudaya germskaas wuxuu noqon karaa mid nool wuxuu noqon karaa mid dhintay wuxuu noqon karaa qayb yar germskii ka mid ah wuxuu noqon karaa sunti germska waxyaabahaas qofka lagu mudaya marka waxaan wuxuu u eegyahay oo dee astaamihiisu sitaa germskii laakiin germskii oo dee nooloo run ah
maaha. Ka weird waa ka life-ka la yidhaha life vaccineska ama life attenuated vaccineska, kaasina dee wuu nool yahay laakiin waa la daciifiyey. Marka jirka marka soo garan jirkiisa wuu la dagaalamaya, laakiin wax xanuuna jirka kuma keenaya, laakiin jirka wuu la dagaalamaya. Dagaalamida jirka uu la dagaalamo ee difaac jireed uu samaysto ayaa la qofku wuxuu noqday immunized, difaac buu helay. Marka vaccines work waxay u shaqeeyaan by mimicking an infection, iyagoo u eg infectionka without causing a disease, without causing the disease, xanuunkii laakiin ma sababayaan. Vaccineskan qofka lagu mudeeya asal shaqeynaya waxa weeyaan immune systemka stimulate gareynayaan si ay u aqoonsadaan una xasuustaan specific pathogens. Yani qofka marka lagu mudo jirka ee jirku la dagaalamo xusuus buu jirka ka reebaa waxaan la dagaalamay talaalka ah ee lagu muday. xusuusta uu haysanaya jirku mar labaad haddii viruskii wax yar laga soo qaatay ama bakteeriyadii lasoo dilay ama wixii markii hore qofka lagu muday wax ka mid haddii jirkiisa soo galaan oo nool laakiin oo shaqeynaya oo xanuun keenaya, jirku waa aqoonsanaya, difaac jireedkii hore ee uu samaystay kaydka buu isticmaalaya, waa xasuusanaya, kadibna wixii uu dilaya uu la dagaalamaya iyadoo aan yani wax xanuun qofka ku dhicin. Marka the stimulate waxay caawiyaan the immune system to recognize si ay aqoonsadaan and remember una xasuustaan specific pathogens enabling the body iyagoo ogolaanaya jirka to respond quickly inuu uga jawaabo si degdega and effectively oo waxtar leh when exposed marka uu soo bandhigo to the actual disease, xanuunkii saxda ah markuu yimaado inuu si yaro fudud oo dhaqsaa oo degdeg uga jawaabi karo. Key components of vaccines talaalka marka laga hadlayo waxyaabaha talaalku ka kooban yahay. Talaalku wuxuu ka kooban yahay antigen baa jira. Antiginku waa wixii jeermiskii xanuun dhaliyaha ahaa ee la daciifiyay ama inactive-ka laga dhigay ama qayb ka mid a lasoo qaatay ayaa antiginku noqonaya. Marka antiginku waa waxa difaaca jirka isagoo carinaya. Marka weakened buu noqon karaa or inactivated part of the virus ama noqon karaa qayb ka mid a viruskii ama bacteria oo inactivated ah trigger taasoo kicinaysa an immune response difaaca jirka. waa qaybtaas waa qayb antiginku vaccine ku kamid. waxaa jira adjuvantskuna waa walxa kale iyagoo nala socda oo lagu daro oo marka vaccineka la diyaarinayo la raaciyo. walxahaas iyaguna waxay ka qayb qaataan in immune response ay kor u qaadaan si marka vaccinekii looga jawaabo. marka adjuvants waa substance that enhance kor u qaada the immune response difaaca jireedka jirku yani jawaab celinta jirku uu sameynayo to the vaccine ee talaalka uu ka jawaabayo. walaba antigenki waa isagoo wixii saxda jeermisku ka koobnaa, adjuvankuna wax lagu daray. waxaa jira preservatives and stabilizers wax la yidhahdo. kuwani waa yaalayaal iyo inay vaccineka stable ka dhigaan, yani markaa waa kuwan isku protection weeye. vaccineka tayadiisa ilaalinayaan, talaalka tayadiisa ilaalinayaan marka la kaydinayo iyo marka meel loo qaaday intaba. marka preservatives iyo stabilizers waxay hubiyaan vaccine remains effective, inuu vaccinekaasi ahaado mid muddo wax taraya. goorma haddii la kaydinayo iyo haddii la qaadayaba transportation storage labadaba preservatives iyo stabilizers kuwa ilaaliyaan. marka vaccineka wuxuu ka kooban yahay qayb wixii antigenka ahaa ee wakiilka ka ahaa bacteria ama viruska iyo wixii immune enhancementka ku sameynaya kor u qaadayay iyo wixii ilaalinayay waxaayay vaccineka. saddexa qaybada component ayuu ka kooban yahay. marka cashirkeena koobaad ee ka hadlaya introduction to vaccinationka qaybtiisa koobaad inoo socdaa lecturkii intaasaan kusoo koobaynaa. cashirkan cashir ku xidna ku kulmayno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.